wuxuu si aad ah u jeclaa xaaskiisii. Waxay haysteen 2 carruur ah. wax kasta uu awoodo wuu siin jiray, balse xaaskiisu marnaba maqsuud kuma ahayn. inkastoo ninku uusan taajir ahayn, haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay. hadduu u soo iibiyo dhar, waxay ku odhan jirtay, waxaan waa wax liita oo mar hore laga baxay. ninku wuu u dhoola cadayn jiray xaaskiisa, wuxuuna ku odhan jiray, maalin ayaan taajir noqon doonaa, waxaana kuu iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga aad u baahan tahay. haweenaydu marnaba telefoone kama wici jirin ilaa mar ay wax ka codsanayso maahee. haddii uusan fulin karin codsigaa, waxa keliya ay samayn jirtay waa inay muranto maalmo, marmarna dagaalanto. galab, isagoo shaqadiisii ka soo rawaxay ayuu soo iibiyey 1 kilo oo hilib ah, isagoo faraxsan oo is leh, xaaskaaga ka yaabi maanta oo caawa si fiican reerku ha u casheeyo. kolkuu gaaray gurigii oo uu xaaskiisi tusay, nin baad sheeganaysaa oo 1 kilo hilib ah guriga keenaysaa, ma saliid baa taal wax kale oo lagu daro. kadibna bannaanka ayay ku tuurtay hilibkii. ninkii aad buu u carooday, balse wuu isdejiyey, wuxuuna is yidhi, marnaba hoos u dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto. maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidixda, kadibna buro weyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood kadib markii ay aad u weynaatay, xanuunkiina ku batay, ayuu cusbitaal tegey, waxaana laga helay kansar. wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. inkastoo aad u xanuunsanaa, haddana wuxuu isku dayey wax kasta uu awoodo inuu reerkiisa quudiyo. 2 sano kadib, xaaladiisii way ka sii dartay, waxaana la dhigay cusbitaalka. lugti ayaa qaliin lagu sameeyey oo laga jaray, laakiin nasiib darro waxay ahayd xilli dambe. fayraskii wuxuu saameeyey jidhkiisii oo dhan. wuxuu u yeedhay xaaskiisii si uu ula dardaarmo, wuxuu ku yidhi, xanaanee oo daryeel carruurta, waxaan dareemayaa inaan adduunkan ka socdo. allaha idin dhowro. wuxuu neefsaday tiisii u dambaysay, wuuna geeriyooday. haweenaydii 2diisii carruur waa ooyeen, maalmo ayay baroordiiq ku jireen. 2 bilood kadib ayay xaaskii booqatay qabrigiisii, way ag fadhiisatay, iyadoo leh erayadan: jacaylkaygii, wax kasta oo wanaagsan waad ii samaysay, waxaad iila dhaqantay si sare, laakiin wixii keliya aad iga helaysay waxay ahayd muran, dagaal aan dhammaad lahayn. marnaba ma garowsan muhiimadaada jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay, goortii aan aniga noqday qofka laga rabo cuntada, dharka, biilkii, waxbarashada, waxyaabo kale oo badan. waan xasuustaa goortii aan tuuray kiiladii hilibka, laakiin hadda ma hayo xitaa nus kilo meel aan ka helno. dhammaanteen waan tabaynaa maqnaanshahaaga hadda. gabadhaadii yarayd oohin ma joojiso, iyadoo i weydiinaysa aabbaheed. allaha kuu naxariisto. had jeer ku qanacsanow oo ka mahadceli wixii lagu siiyo, hadday yar tahay ama weyn tahay. jacaylku ma aha wax badan inaan haysano, balse waa sida la isula wadaago waxa yar ee la haysto. kuwa xiriirka idinka dhexeeyo kula hadal mar kasta hadallo wanaagsan inta ay nool yihiin. qofna ma garanayo xilliga uu dunidan ka tegayo. marnaba ha ku ciyaarin dareenka qof ku jecel, ha dhaawicin qalbigooda, sababtoo ah hubaashi maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad dayaxa weyday kolkii aad xiddigaha tirinaysay.